Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamayaa asxaabtayda qaaliga meel kastoo dunida guudkeeda kaga joogtaan. Waa mar kale iyo barnaamij cusub oo aan idiga soo diyaariyay wadamada ku qalabaysan atomic bombka ama hubka sida ba'an wax u gumaada. Ku soo dhawaada mar kale channelkeena qaaliga ah ee soo gudbin doona insha Allah mar kastaba waxyaabaha aad ku faraxdaan oo macquul ah. Number 10 wadanka Islaamiga ee dalka Iran waa mid ka mid ah wadamada ugu awooda badan la bariga dhexe ama qaaradda Aasiya, waxaana ku qalabaysan tahay hubka loo yaqaan nuclear bomb. Hubkan oo ah hub aad iyo aad u daran adduunkana haddii lagu rido xasuuqaya malaayiin qof oo ku kala nool daafaha dunida. Haddaba Jamhuuriyadda Iran oo aan haba yaraatee marnaba aan afkeeda soo marin hubkan inay haysato ayaa waxay ku qalabaysan tahay hub aan tiradiisu badnayn balse dhibaato aad u fara badan geysan kara. Number 9 Kuuriyada Waqooyi. Dalka uu hogaamiyo majaxan-shaxaad daad yar leh ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ku qalabaysan hubka loo yaqaan nuclear bomb, kaas oo tiradiisa lagu cayimo ilaa 10 madax oo qaada hubka atomic bombka ama nuclear bombka qumcayada sida baan wax u gumaada. Dalkan dhaca qaaradda Aasiya ayaa ah dal aad u yar oo haddana faqar ah, waxaana ku qalabaysay hubka sida baan wax u gumaada iyadoo laga filan karo mar kastaba in wadankan uu isticmaalo haddii uu u yaabo naftiisa. waa sida uu mar kastaba ku celiyo hogaamiyaha daad yar leh dalka Kuuriyada Waqooyi. Number 8 dalka Israa'iil. Dalkan oo ah wadan qacan ku samaysa oo isna dhaca bariga dhexe ayaa waxa uu ku qalabaysan yahay hubka sida ba'an wax u gumaado oo lagu qiyaaso ilaa 80 madax. Wadankani sababaha uu samaystay waxaa ka kooban iyadoo ay ku hareeraysan wadamo badan oo Islaam ah, kuwaas oo intooda badan ay taageersan wadanka Falastiin oo wadanka Israa'iil badanaa dhulkiisii ka boobay haddana uu qacan adag ku hayo. Wadankani waxa uu mar kastaba afkiisa ka dhowraa inuu haysto hubka sida ba'an wax u gumaada maadaama aanay dunidu ogoleen in hubkan uu sii fido. Dalka Hindiya. Number 7 dalka Hindiya waa dad ay ku nool yihiin malaayiin qof oo Hindiyaan ah. Waa wadan aan sabool ahayn kuna jiro wadamada uga horumarsan xagga warshadaha. Haddaba wadankan wuxuu haystaa 130 ilaa 140 hubka sida ba'an wax u gumaada. Wadanka Hindiya ayaa cadaawad gaamurta waxay kala dhaxaysaa wadamada China iyo Pakistan, labada wadan oo ay isku hayaan dhul aad u baaxad weyn. Wadanka Pakistan oo cadaawada ugu koowaad ay ka dhaxayso ayaa waxay isku hayaan gobolka Kashmir oo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo qof oo muslimiin ah. Jamhuuriyadda dalka Pakistan. Number 6 dalka Pakistan waa wadan ay ku nool yihiin malaayiin muslimiin ah oo ku aada caqiidada diinta Islaamka. Wadankan waxa uu ku qalabaysay hubka atomic bombka ama nuclear 140 ilaa inta u dhaxaysa 150 ayuu wadankani haystaa, waxaana kaga horeeya xabka madaxyada hubka dalka India oo ay cadaawad ba'an ka dhaxayso iskuna hayaan gobolka Kashmir. Gobolka Kashmir ayaa ah xudunta khilaafaadka ee labada dal ee Hindiya iyo Pakistan. Wadanka Islaamiga Pakistan ayaan marnaba ka gaban inuu isticmaali doono hubkan, manu saxiixin heshiiska odhanaya ma isticmaalino hubkan ilaa aanu u yaabno nafteeda. balse wadankani waxa uu sheegay mar kastaba inuu ku difaaci doono naftiisa waqti kasta oo uu u baahdo. Number 5 boqortooyada Ingiriiska. Wadanka UK ama England kolba sidaad u taqaano. Wadankani waxa uu ku qalabaysan yahay hubka atomiga ee sida ba'an wax u gumaada. Hubka nuclearka waxaan u haystaa 225 madax. Boqortooyadan ayaan marnaba ka gaban hubka ay haysato, inkastoo ay saxiixday boqortooyadu inaanay sii badin doonin ama aanay samaysan doonin hub intan ka badan. Boqortooyada Ingiriiska ayaa ah wadamadii ugu horreeyay ee bilaaba ama samaysta hubka nuclear bombka. Wadankani weli uma isticmaalin wadan kale hubkan. Wadankani marnaba cadaawadiisa uma muujiyo wadamada kale, inkastoo khilaafaadka adduunka uu lambar 1 ka yahay wadamada abuura ee baaba iyo burburka ku wada wadamada Islaamka. Lambarka 4 dalka China. Wadankii gumaadka muslimiinta. Wadanka xasuuqa dadka la nool ee muslimiinta ah. Dalka China waxa uu haystaa tiro aan sidaa u badnayn waana 250 balse dunidu ma aaminsana in hubka
uu haysto jamhuuriyadda Chiinuhu 250 madax, waxaana ay kuba tilmaamaan inuu haysto 10 madax oo hubka sida baan wax u gumaada ah, maadaama ay cadaawad gamuurtay kala dhaxayso wadamada Hindiya, Mareykanka iyo weliba wadanka Taiwan oo uu rababa inuu ka go'o wadanka China. Wadankan ayaa ah wadan xasuuq baan ku haya dadka Islaamka ah. Wadankan ayaa xagga casriga tiknoolajiyada meel baan ka gaadhay, waana wadan dhaqaalihiisa uu korayo. Number 3 baabiyaha Afrika, dalka Faransiiska oo gumaystay wadamo badan oo Afrika ay ilaankana ku haya gumaysi baan qaaradda Afrika ayaa ah wadanka baabiyay dalka Liibiya. Wadankan waxa uu ku qalabaysay 300 oo hubka wax sida baan wax u gumaada ah, waana 300 oo madax oo geysan kara burbur baaxad leh oo dunida guudkeeda ah. Dalka Faransiiska ayaa gumaystaha koowaad ee qaaradda Afrika waqti xaadirkan iyo waqti horeba. dalkani weli uma isticmaalin hubkiisa wadan kale, balse markastaba waxa uu ku goodiyaa inuu isticmaali doono mar allaale marka ay danaha dalkiisa iyo qarannimadiisu ay dirqi gasho. Lambarka 2 shaydaanka dunida, xasuuqaha Islaamka, baabiyaha wadamada soo koraya ee Islaamka, uu awood sheegashada wadamada aan la tabartahayn. Dalka Mareykanka oo baabiyay boqolaal dal oo muslimiin ah iyo weliba laayay boqolaal malaayiin oo muslimiin ah ayaa waxa uu ku qalabaysay tiro aad u fara badan oo hubka sida baan wax kumaada, waana 7400 oo nuclear bomb ah. Wadankan wuxuu kaalinta labaad kaga jiraa wadamada adduunka haysta nuclear bombka. Wadankan waa wadanka kaliya isticmaalay hubkan oo isticmaalay wadan kale. Dalka Mareykanku waxa uu 2 qumac oo hubka nuclear-ka ku dhuftay dalka Japan. labada magaalo ee loo kala yaqaan Hiroshima iyo Nagasaki oo weli xaadirkan ay ka dhashaan awlaad aan dhamaystirnayn, dadka ku noolna ay markastaba caafimaad darro hayso. Lambarka 1 dalka Ruushka ama Russia. Dalkani waa wadanka ugu badan ee haysta hubka sida baan wax u gumaada. Wadanka Ruushka oo haysta 8,000 oo qumac ayaa sanadadii ugu dambeysay ama 40 sano ugu dambeeyay dunida siyaasadeeda aan awood badan ku lahayn, inkasta oo uu haysto hubka ugu saameynta badan dunida ee nuclear bombka. Wadankani sanadadii ugu dambeeyay waxa uu xasuuq badan ka geystay dalka Suuriya, isagoo awoodiisa military ku tijaabiyay si uu caalamka u tuso in dalkii la odhan jiray Midowga Soviet ama Russia uu soo noqday. Wadankan hore uma isticmaalin hubka uu haysto ee tirada intaa leeg ah wadan kale. dalka Ruushka waqti xaadirkan waa wadamada ugu tirtirta weyn la xagga hubka iyo weliba iibintiisa. Dalka Ruushka oo haysta 8,000 oo qumac weli muu adeegsan, inkasta oo markastaba ku goodiyo inuu isticmaali doono haddii uu u yaabo naftiisa ama ay danaha dalkiisa ama shacabkiisu ay khatar gasho. Dalka Ruushka waa dal aad u weyn, xuduudo fara badan leh wadamo fara badan ayaa waqti xaadirkan dhaqaalihiisu kor u kacaya. maanta waxaan ku soo afmeernaa barnaamijkeenii halkaas. aad baan idin salaamanaa asxaabtayda meel kasta dunida guudkeeda aad kaga sugantihiin. fadlan haddii channelkeeda ku cusub tahay nagu dhiirigeli wixii ekraankaaga sida subscribe, like iyo share.